ولا وقت وأعرف هذا وأعرف ويا مركي أبني هان لأجو أد بالله إلى رياح لكن شانس كأهلين بوحي تاي عيد مالي برا كنترول ها ميلا عن هاي وأول حنا يقدر يكون حنا يبقى ما تقدر حيد لا يقع مركا أياك أو دي هي يعني ما راح أسقط بدأ دي يو أنتي أي ما راح تقول لي أنا اللي المجال قبل واحد بهو يعني بالعكس كده واحد تصا يعني المجال اللي بتشوفه مكت مركا تاس واي ما أنا وأنا إسكاد أي كلام تقول ضد هذا كذا ما في العاري وحركته بس ودوي marka gaari ciidan laga dhigay oo qarax lagu soo aruuriyay oo gaari cabdibila ah baa meesha la galeen ma garan wadooyinkii maanta la furay ka soo bixeen oo jaboontiyada dhanba ma aysan soo marin bismillaahir rahmaanir rahiim kula wanaagsan ku soo dhawaada qodobkan kooban oo aynu ku eegi doono xogihii ugu dambeeyay ee weerarka ay kooxda argixisada ah ee khawaarijtu ku qaadeen xabsiga godka Jilicow ee magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya oo ay galabta weerar ku qaadeen waxaa khadka telefoonka aan kula xiriiray xidigla ka tirsan ciidamada booliska Soomaaliyeed oo ku sugan magaalada Muqdisho caasimadda Soomaaliya waa Cabdiqaadir Cabdi oo loo yaqaan Cabdidaare soo dhaw marka hore bal ka waran xaaladdu hadda sida ay tahay aad nuur oo aad baa u salaamaya adiga iyo bahda STV-ga xaaladdu waa fiican tahay hadda dib weyn ma jiro galabtay baa hadii aad u soo galay waxa weerar gaadma ah oo weerar fulinima waxa lagu soo qaaday nimankii cadawga ummadda Soomaaliyeed ahaa ayagoo ka faa'iideysanayay wadooyinkii iyo amnigii soo hagaagayay wadooyinkii la furay maanta dawladdu ay konton iyo lix wado ay dhagax ku xirnaayeen laga qaaday wadadaas wadooyinkaas wada kamid ah ay soo galeen weerar marka qaraxyo ku bilowday bay ku qaadeen meesha gudahana waa galeen oo waa ka dagaalameen laakiin ciidanka xoogga dalka iyo hay'adda nabadgelyada oo labaduba aad u dadaalay ayaa ku guuleystay in ay maxaabiistii ay rabeen inay xabsi ka sii daayaan ay ka hortagaan ayakiina hadda waa la soo afjaray inkastoo meesha hadda xasaasi ay tahay oo khasaaraha ka dhacay aan cidna xaqiijin karinin oo ay hay'adaha amnigu ay gacanta ku hayaan ayaguna ay soo bandhigi doonaan laakiin weerarkii galabta dhacay weerar horta wuxuu ahaa gacma weerar fulinimada waa ahaa laakiin hadafkii laga lahaa iyo ujeedadii laga lahaa waa la fashiliyey insha Allah way marka la fiiriyo xogaha aan helaynay waxa kamid ahaa in ragga weerarka soo qaaday ay wateen gaari uu ku buufsan yahay rinjiga ciidamada NISA ama sirdoonka Soomaaliya sidoo kalena diriiska NISA ay wateen arrinta maxaa ka jiro nooga sheegi kartaa walaal horta waa sax waaye oo de way qaataan way isticmaalaan inta badan sababtoo ah magaaladu waa magaalo aad loo ilaaliyo oo jabboontiyadeedii iyo ilaa uu soo galiyahay meelo fara badan bay marayaan marka waxay ka faa'iideysanayaan ciidanka waxa sharcigiisu u yahay hadii gaarigu uu gaari military yahay ama gaari nabad sugideed yahay ama mid booliis yahay inta badan lama baaro hadda askartii oo dhan baa wada socoto gaari cabdibilah oo sax ah oo ciidanka ay leeyihiin bay daba galayaan marka waxay qaldayaan in caalamka iyo ciidanka ku qaldayaan oo maadaama gaari buufsan aan cidla baarin inta badan baabuurtu ay buufsadaan oo dirijiyan meel walba iska yaalaayeen gaariga ciidanka loo ekaysiinaya dadkana waa wax la talayo suuqa laga koobiyay laakiin natiijadu waxay tahay saas ayagoo ah oo dadkii dad Soomaaliya ay yihiin oo aan sumad gooniya lahayn oo aan taarget gooniya ku oolin oo qofka inuu shabaab yahay inuu kiisaxda ayaa kala aqoonin baadana inta badan ciidanku ay ka hortagaan oo fashiliyaan ma garan way dhacday waa sax way sameeyeen arkaas way sameeyeen horena waa u sameeyeen oo kii hadda ka hor xataa ka dhici jiray iswa insaas kaleetay gaari u buufsadeen ma garan way Cabdi marka hadda la fiiriyo ragga meesha galay tiradooda ma la yaqaanaa mise wali waa in la soo bandhiga ayaa la rajaynay walaalo horta meesha gudaha anigu ma gelin banaankaan joogay hase ahaatee xogta rasmiga markii aan been iska ilaaliyo ma hayo laakiin hadda maadaama soo afjaray hay'adaha amniga markuu soo bandhigi doono qasaarihii meesha ka dhashay tiradoodu intay ahayd inta la dilay laakiin waxaan ku xaqiijin karaa in hadda la soo afjaray nimankii waayahay dadka inay maxaabiis sii daayaan oo ay weerareen gudaha maxaabiis meesha ku xirnay maxaabiis badan oo shabaab ah xirnay ujeedada ay lahaayeen waxay ahayd inay maxaabiistaas ay sii daayaan bay ahayd ujeedadoodu way Cabdi marka la fiiriyo godka Jilicow wuxuu ahaa goob aad loo ilaaliyo madaxtooyadana aan aad uga fogeyn sidaan qiyaasayo dabcan madaxtooyada iyo damjirka daasoon buu u dhaxeeyaa haddii aan khaldanayn meel sida loo ilaalinayo in maaragtay la beegsado cudurdaar noocee loo heli karaa waa horta waa arrin aad u adag weeye markii amni ahaan la eego aad baa loo ilaaliyaa laakiin chance ka heleen baa waxay tahay ciidan
meelihii baraha kontaroolada ahaa meela aan ahayn oo awal xirnaayo dhagaxyo ku xirnaayeen baa maanta dhagaxyadii laga qaado marka ayaga oo diidahaya yani madaxdaas khudbadeedii iyo arrintii ay madaxda ku hadlayaan oo la yidhi magaalada amni waaye bay waxay yani bilcakiskeeda waxay tusayaan inay magaalada weli joogaan moogta marka taas waaye ma ahane waana iska dee ayaga laftigooda dad hadda ay ka dhamaatay oo naflacaari iyo haraartii u dambaysay wada weeye marka gaari ciidan laga dhigay oo qarax lagu soo aruuriyey oo gaari cabdibila ah baa meesha ay la galeen ma garan wadooyinkii maanta la furay bayna ka soo baxeen oo checkpointiyada dhanba ma aysan soo marinin markay ka arkeen meesha iyo markii gaari qarxeen isku mar bayba ahaydba waaya waxa qarxay meesha ay ku qarxiyeen ma gaarigiiba mise waa dadkii saaraa gaarigaasi watee qaraxyada ay ku bilaabeen kabacdina lug bay xabadda ku bilaabeen oo ku galeen meesha waayahay marka la fiiriyo in konton wado in ka badan maanta dhagaxyaantii laga qaaday oo la furay soo lama odhan karo dhinaca kale waxaa la fududeeyey oo dowladdu fududeysay in amnigu si dhib yar faraha uga baxo wallahi horta dee kolley dowladdu waxaa iskama furnina daraasid bay wax ku samaysay marka waxaan wax kolley hadda qofnaabay ahayd waana ficil yar oo hadee ummadda soomaaliyeed intaas ka badan inay wadada ka xirnaato oo magaalada iyadu amnigeeda hadda uu soo hagaagay wax walba isbedeleen shabaab si kaleeta in loola diriro maahana wadda hadda dhagax ay ku xirnay si gooni hadda uma celinahayo oo dayadoo intaas ka badan bay qaraxyada ugeed iyo dhibaatooyinka ugeed ay samayn jireen oo ay 5,000 qof nooga dilahayeen ma garata marka intii ayaka wadda ay ka xirnaan lahayd ayakana inaan iska celino shacabkana waddada loo furaa ka macna roon waayahay hadda oon kula hadlayo xaaladdu waa sidee hadda joogu waa degan yahay hadda xabad uma socoto inkasteetoo aan meesha gudaheeda aan la geli karin oo hay-adda nabadsugudu ay gacanta ku hayso iyo laamaha kaloo amniga oo ka qayb qaadanahaya oo aanan khasaare hadda kugu xaqiijin karin laakiin xabaddii waa joogsatay gudihiina waa laga soo afjaraya waayahay inkastoo ay xaalad amni tahay haddana godka jilacow laba jid baa inta badan oo waaweyn baa soo gala oo midna dhinaca madaxtooyada ka yimaado midna dhinaca daljir ka yimaado weerarku dhinacu ka yimid ma la qiyaasi karaa ma dhinaca madaxtooyada kamaysan imaanin dhinaca daljirkay ka yimaadeen weliba wadada jidkii laamiga aan ahayn oo jid cadda ah oo maanta lafkooda dhagaxya laga qaaday bay soo mareen ma garata marka ayagoo intii ay dhuuman karaan iyo meesha checkpointiga iyo meeshii baaritaan yaalla iyo waxaas way ka dhuumanayaan xataa kalsooni ma haystaan ay askarta ku dhex maraan marka halkaa waxay usoo mareen waxaa waaye chance bay ka faa'iidaysteen maadaama ay ahayd maalin iska saxmad badan oo dadku dhan uu ku mashquulsanaa wadda furitaan iyo hawlahaas oo meelihii dhagaxyadu yaalleen oo dhan la baneeyey hadde kontarooladii meelihii baraha kontaroolka laga kontarooli jiray sokodoodii baa la fura sooma oo markii 1 kilomitir oo kontaroolku meesha u jiro inteeda soka dhagax baa ku xirnaa marka dhagaxii baa la furay askartii kontaroolka joogtay iyo meesha dhexdooda bay soo mareen oo chance ay ka heleen waayahay cabdiow gabagabadii godka jilicow oo dabcan de waa xabsi muxuu kaga duwan yahay xabsiyada kale ee waaweyn ee magaalada muqdisho ku yaal wuxuu uga duwan yahay xabsigan waa xabsiga hay-adda nabadsugidda hay-adda nabadsugidda inta badan galkooda shabaabka ayadaa gacanta ku haysa ayadaas loo qabata xabsiyada kale wixii la xukumo unbaa gala laakiin meesha baaritaan ka yimaado dadka lasoo qabto dhan ay ku xiran yihiin saraakiisha shabaabka oo waaweyn ay ku xirantaho baaritaanka iyo tacliiqinta lagu soo sameeyo waaye marka hay-adda keliyahoo sida tooska inkastoo laamaha amnigoo dhan ay cadow ku yihiin ay kulligeedna aanu wada raadino oon wada qabano laakiin nabadsugidooda si gooni ay ugu xilsaaran tahay oo waa hay-adda sirdoonka moogta marka xogtooda dhan bay haystaa faylkooda dhan bay haystaa maxaabiistooda iyo dadkooda dhanna way haystaa meeshana niman maxaabiisaa ku jiray waaye suuragal ma tahay marka weerarkan galabta dhacay in uu sababay in maxaabiis ay ka baxaan xabsiga godka jilicow maya waa bixi waaye waa isku dayeen ayaga laftigooda inta saasay rabeen inay maxaabiis la baxaan bay rabeen oo weerarkaas markuu meesha ka dhaco maxaabiista ay ooda ka jabiyaan laakiin meesha dhismaheeda meel adag oo godka jilicow dee waa xilligii siyaad barre iyo dowladii ka horreeyey baa adkeeyey meel oo hal albaab laho albaab sidii inta qof furo sida xabsiyada kaleeta ama stationada kaleeta ama aha waa xabsiyaal gudaha qofka lamaba arkan ayaa guduhu ku jira marka ayaga laftigooda xataa hadday chance helaan ma yaqaanaan qof meel ku xiran yahay aad baa umahadsan tahay waxa uu ahaa xidigle cabdidheere oo ka tirsan ciidamada booliska soomaaliyeed ku sugan magaalada muqdisho caasimadda soomaaliya oo khadka telefoonka igu warramayay waxna aan ka weydiiyey weerarka ay galabta khawaarijta ku qaadeen xabsiga godka jilicow ee magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya wixii waraya soo kordha dib ayaan haddii rabbi qadar idinka soo gudbin doonaa intaynu mar kale kulmi doonana waa nuur oo idinle sidaas iyo nabadgeliyo wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu aad baad umahadsan tahay cabdi aad baa umahadsantaa nuur aad baa umahadsantaa